Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay dunida dacaladeeda ka joogto. Magacaygana waxaa la dhahaa Korneyl Farxaan Abshir Maxamuud Siyaad. Maantay codkayga wuxuu ku saabsan yahay tacsi aan u dirayo madaxweyne ku-xigeenkii hore mudane Maxamed Cali Yuusuf Gaagaab oo awowgay ahaa madaxweyne ku-xigeenka hore Puntland, marna ahaa guddoomiyaha ku-meel gaarka aqalka sare ahaa, wasiirkii maaliyadda hore, marna ahaa guddoomiyaha xisbiga hantida gacanka Soomaaliya xilligii dowladda Soomaaliya jagooyin badan soo qabtay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ka soo shaqeeyay. Awowgay Ilaahay jannada ha ka waraabiyo Maxamed Cali Yuusuf Gaagaab. Innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun baan leeyahay. Ummadda Soomaaliyeed samri iyo iimaan Ilaahay ka siiyo, dalkiisa iyo dadkiiba Ilaahay samri iyo iimaan ka siiyo. Qaranka Soomaaliyeed uu ka baxay in badan u soo shaqeynayana Ilaahay samri iyo iimaan ka siiyo. Ummadda reer Puntland waa uga tacsiyeynayaa iyo qoyskii iyo qaraabadii ehelkii oo dhan, gaar ahaan ummadda reer Puntland waa uga tacsiyeynayaa awowgay Maxamed Cali Yuusuf Gaagaab. Ilaahay qabriga ha u waasiciyaan leeyahay. Innaa lilaahi wa innaa raajicuun. Tacsid kadib waxaan intaa ku darayaa in haddii hadda waddanka Turkiga ku geeriyooday Maxamed Cali Yuusuf Gaagaab, nin masiir dowladeed uu ahaa hadda aqalka sare ku jira oo Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya macnaha aqalka sare ah. Marka in la soo qaado aan rajeynayaa, inkastoo hadda aan hubin in la soo qaaday, laakiin haddaan la soo qaadin waxaan rajeynayaa in la soo qaado si fiican loo maamuuso. Dowladda Puntland baan ka codsanayaa inay guddi u saaraan baarlamaanka ka soo jeeda gobolka Mudug oo Puntland iyo inay soo qaadaan, soo qabanqaabiyaan, iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha kulli inay mas-uulkaas soo qaadaan awowgay oo dalka calanka la dul saaro, si fiican loo maamuuso, si fiican loo aaso. Ayaan rajeynayaa in tacsidaas tiiraan la yeelan ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa uga tacsiyeynayaa, gaar ahaan ummadda reer Puntland. Ilaahay samri iyo iimaan anagoo dhan naga siiyo. Tiir baa inaga baxay, ummadda Soomaaliyeed oo dhan buu ka baxay, wuxuu ka baxay qaranka Soomaaliya oo dhan buu ka baxay. Ilaahay jannada ha ka waraabiyaan leenahay. Kitaabkiisana midigta Allah ka siiyo, janno firdawsana Allah ka waraabiyo. Gaar ahaan qoyska reer Gaagaab iyo qaraabadii ehelka Ilaahay oo anigana ehelka aan ka mid ahay, samri iyo iimaan Ilaahay ha naga wada siiyo. Tacsidaas kadib markaan ka gudbo, waxaan ka hadlayaa arrimaha ayaantaan oo dhan dalka Soomaaliya ka socday, gaar ahaan Jubbaland arrimo ka socday. Arrimahaasna waxaa weeye ciidamo ka tirsan dowladda Jubbaland oo baryahan been abuur la leeyahay waa isdhiibeen, waxay isku dhiibeen maleeshiyaadka eedeysana Xasan Gurgurte oo been ah oo been abuur ah. Marka wax dhici karana maahan. Axmed Maxamed Islaam madaxweynaha Jubbaland waa nin xeelad badan, siyaasad badan, halyeeya, geesi ah. Ciidanka qalabka sida Jubbaland isma dhiibayaan. Ciidamada waxaan ka codsanayaa ciidanka Jubbaland si degdeg ah inay uga saaraan maleeshiyaadka uu ka soo aruuriyey Xasan Sheekh Maxamuud meesha la yiraahdo. Hadda ka horna waa sheegay uu ka soo aruuriyey Maxamarna uu ka keenay, qaarna uu ka keenay Masaajid Cali Gaduud iyo Cawsweyne iyo Caad uu ka keenay oo argagixisadii halkaas ay joogto oo intuu argagixisada kula dagaalami lahaa dal iyo dad nabada iyo gobollo nabada uu keenay oo qalad ay tahay. Waxaan si degdeg ah looga saaro. Haddii laga saari waayo maleeshiyaadkaas la keenay Raas Gambooni iyo la keenay Jubbaland, deegaanada Jubbaland la keenay, haddii laga saari waayo ama ay soo dhiibi waayaan, muddo 2 beri ayaan u qabanayaa anigoo ah Korneyl Farxaan Abshir Maxamuud Siyaad. Muddo 2 beri ilaa adigu 70 saacadood baan u qabanayaa ama ka yar. Waxaan u qabanayaa adigu ilaa 36 saacadood inay soo dhiibaan. Hadday soo dhiibi waayaan, ciidamada Jubbaland, ciidamada qalabka sida Jubbaland baa soo qabanaya. Dowladda Jubbaland waa u mahadcelinaysaa sidii dalka u difaacday, ayna ka goysay waxaa la yiraahdo internetkii iyo biyihii telefoonka ay ka goysay si ay isku soo dhiibaan. Dowladda Jubbaland aad baan ugu mahadcelinayaa. Haddii ciidankaas meesha ay ka bixi waayaan oo laga saari waayo, weji kale ay yeelanaysaa. Waxaan ka codsanayaa dowladda Puntland ciidan inay u soo dirto oo halkaas ciidan geyso, ciidamada BNPF iyo BSF oo doomo lagu soo qaado ama diyaarad. Hadday ka bixi waayaan, hadday ka baxaan oo ay labadan hadda aan u qabtay 2 beri kaga baxaan oo isku soo dhiibi waayaan, waa arrinta markaas waa wanaagsan tahay. Laakiinse hadday ka bixi waayaan, weji kale ay yeelanaysaa. Marka
Waxaan kaloo hambalyo iyo bogaadin u dirayaa ciidamada qalabka sida Puntland oo argixisada la dagaalamayo oo meesha la yiraahdo Galgala iyo Ballidacar iyo Caloolo iyo Baargaal xagga howlgallada ka wada. Ummadda reer Puntland waxaan ka codsanayaa inay ciidamada Puntland isgarab taagaan oo caanaha iyo biyaha iyo wax walba ka daba qaadaan. Ciidamada qalabka sida Puntland waxaa weeye waa ciidamada keliya Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya ay leedahay. Ciidamada geesiyaasha ah oo adduunkaba ciidamada bariga Afrika hadda jooga wax u babac dhigi kara aanay jirin, gaar ahaan ciidamada Jubbaland iyo ciidamada SSC Khaatumo iyo ciidamada Jubbaland iyo ciidamada SSC Khaatumo daraawiishta. Ciidamada qalabka sida Puntland wax u babac dhigi karaaba aanay jirin oo kana fiican waxa lagu sheegay ciidamada Soomaaliya markii hore waa fiicnaa, laakiin ninka gurgurta eedeysanaha ciidamadii bahdilay, niyadda ka jabiyey oo ninkii la oran jiray General Gordon waa isagii ka bedelay magaciyo nin imaaraad oo cadow ah oo yuhuud ah ku bedelay. Imaaraadna waa yuhuud, wax faa'iido male. Yuhuudday hambaabulale wax bay soo wadaa. Imaaraad iyo qaliij waxaa nijaasada haddii aragto yuhuud bay soo wadaan, yuhuud bayna ay shuraaka leeyihiin. Marka waxaa leeyahay hambaabulale wax bay soo wadaa, jacaylkanu hirdiga waa kula helaa. Imaaraad waa yuhuud weeye, wax faa'iidana ma lahan. Imaaraad haddii aragto yuhuud buu soo wadaa, yuhuud baa mataqaanaa la socoto oo maaragtay intuu ku bedelayo. Marka waxaa weeye gurgurte eedeysana gurgurte ina suuban awalba faa'iido ma lahan. Waddan buu ahaa, waddankii Soomaaliyana wuu baabiiyey. Dadka oo ayaan dhaweyd xamar joogay magaalada Muqdisho cabanaya waa arkayseen, islaamaha masaakiinta iyo dadka guryaha ka saarayo. Marka waxaan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo madaxweynihii hore hadda ka horna waa u diray fariin aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa madaxweynayaashii hore. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gaar ahaan waxaa ka hadla arrimahaas madaxweynihii hore Jamhuuriyadda Dimuqraadiga mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed aad iyo aad buu u mahadsan yahay. Asaga arrimaha ka hadla, haddana waxaan ka codsanayaa inuu ka hadlo ummadda Soomaaliya badbaadiyo, inay isku tagaan madaxweynayaashii hore iyo ra'iisul hore iyo madaxweynaha Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Deni inay isku tagaan oo ay dalka ka badbaadiyaan ninka hadda kaligitaliska ah oo cadowga ah oo ciidankii qalabka sida ay u jeedaan inuu magacii ninkii halyeeyga ah ee qaranka Soomaaliya guulaha u soo hooyey General Gordon xeradii lagu magac daray ka bedelay magacii nin cadow yuhuud oo imaaraad magacii ku bedelay. Dadkiina la qaxinayo oo qaxinayo oo ciidamadii argixisada la dagaalami lahaa oo geeyey Jubbaland u raray meel nabad ah oo u raray waa arkaysaan waxa socda. Marka waxaan ka codsanayaa inaad ka bedesho inaa waddanka badbaadisaan intaynaas nimankaas siyaasiyiinta intaas ku tagtaan. Waxaan arrimahayga waxaan kaloo rabaa maanta inaan intaasna oo kale fariin kalena diro oo ah dadka ka soo jeeda gobollada meesha Maakhir ama Sanaag iyagana waa hambalyeynaya waana bogaadinaya inay dalkooda difaacdaan sidii u kaceen oo gobollada degmooyinka Yumbe iyo meesha la yiraahdo Fiqi Fuliyo iyo ciidamada SC iyo ciidamada Maakhirna iska rabsadaan oo ay ka difaacaan SNM oo ayaan dhaweyd Cergaabo dhibaato ka samaysay. Magaalada Cergaabana si degdeg ah gacanta loogu dhigo oo maleeshiyaadka SNM laga badbaadiyo oo ayaan dhaweyd dhibaato sameeyey oo haddana weli dhibaatadii wada. Nabaddana awalba harti baa lagu joogay, nabadda harti baa marka hore keenay, nabaddiina SNM baa jebiyey. Nabadda ma jirto, nabadda hartiga beelaha harti baa lagu joogay. Marka ciidamada halkaa jooga hadda baryahan howlgallada iyo maaragtay arrimaha halkaa ka wadan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Marka waxaan kaloo mar kale ku celinayaa in dalka Soomaaliya la badbaadiyo, laga badbaadiyo argagixisada nimanka damjadiida oo cadowga argagixisada gacansaarka la leh argagixisada ah, in dalka laga badbaadiyo baan mar labaad ku celinayaa inay isku tagaan siyaasiyiinta. Ninka la yiraahdo madaxweynaha dowladda Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam waxaan ka codsanayaa inuu hadda waa markii saddexaad holaha hambalyo ugu diray, mar labaadna hambalyo kale u dirayaa inuu deegaanada Jubbaland maqan oo ay ka mid yihiin deegaanada Bu'aale iyo Salagle iyo Jilib inuu gacanta ku dhigo ciidamada qalabka sida Jubbaland ay u ruqaansadaan ayaan ka rajaynayaa madaxweynaha. Waxaan kaloo salaan diiran u dirayaa General Cabdullaahi Farweyne oo duqa magaalada Kismaayo asagana dagaalka galay dalkiina difaacay. Waa anigu Korneyl Farxaan Abshir Maxamuud loo yaqaano Raamole. Aad baan ummadda Soomaaliyeed
sanadka soo socda ilaahay khayrkiisa hana siiyo, sanad wanaagsan. bishaana ugu dambeysa ummadda Soomaaliya bashbash iyo barwaaqo rajeynayaa, iyo iyadoo dalka la badbaadiyo, lagana badbaadiyo wadaniinta iyo damjadiid iyo cadowga isku bahaystay in laga badbaadiyo, oo ragga hadda jooga ay ka badbaadiyaan, anigu ka mid ahay. Marka ummadda Soomaaliyeed